marka dadka wacyigooda inaan kor u qaadno oo Soomaali ay tahay dad homogeneous ah oo dadka magaciisa dalka in la yiraahdo wadan saas ma jiro adduunka annaga waxaan nahay hal qowmiyadaas magaceeda dalka la yiraahdaa dalkaasna waa dal khayraad badan dadkiisana waa idinka oo hadda cid walba leedahay waxaan u baahnaan lahayn dhig Soomaali oo kulul in lagu shubo marka wacyiga dadka inaan kordhino qabkoodii aan kor u qaadno wadaniyadoodii aan kor u qaadno waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhacaa oo dadku kalsoonida ka lunta mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dawladda Hiblaya qaadanaysa war adiga haddii noo sheegay dalkaaga loo qaadanaya adaa noole adigu haddii isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weey laakiin haddii soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaali meel ku nool yahay dalkiisa lama qaadan waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano waliba waa jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wareejisano dalkeena dal kale malihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanayna qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro marka niyada khayr u sheega in malaqi karta malaha dacar Soomaali waa dacar weey waan isku dayay ma qasab isku dayay dadkii naga horeeyay waxba garanayeen oo qabkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamadii anaga Afrika ugu horeeyo xorriyad qaataana Soomaali lagu ma soo dhaco qabkiina kor u qaada kalsooniga kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaa shaki anaga qabina anaga idin ka hor dhimanayna anaga diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin hanaga harino hanaga bixin dagaalka